السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا وحن مقالك كوبان kugu tusaynaa sida la isaga diiwaan geliyo website-ka akademiyada iyo sida wax looga barto ugu horeyn walaal waxaan ka codsanaynaa si fiican oo degan u daawo sida website-ka wax looga baranayo iyo sida la isaga diiwaan gelinayo haddii aadan fahmin sida website-ka wax looga baranayo waa kugu adkaanaysaa in casharadii aad si fudud u hesho marka walaal marka hore isdaji adigoo aan degdegna uuso kugu jirin si tartiib ah talaabooyinka la sameeyo samee talaabooyinka mar isdiiwaan geli casharada sida loo qaadanayo wax kasta intu soo taabsi baa loogu tusayaa kaliya walaal degdeg jooji waxyaabaha aan aragno waxa kamid ah ardaygu waa degdegaya xusaa isugu laadaya waxba isku qaldaya hadhow ku leeyahay waxba saan noqday waxba arki waaye walaalo sida adiguna aad u wareerin annagana aad noo wareerin muuqaalka si fiican u fahan si aad isaga diiwaan geliso una hesho koorsada aad iibsatay ugu horeyn google-ka tag waxaad ku qortaa Galaysane Academy waa website-ka akademiyada waa ka magacii Galaysane Academy marka aad ku qorto waa ka website-ka waa ka ugu horeeya Galaysane Academy waa ka magacii ku dhufo marka website-ka marka ku dhufato wuxuu ku soo saarayaa wajahada hore website-ka waa kan marka website-kii aad joogto hoos u soco si aad koorsooyinka u tagto marka imise koorsa website-ka ku jira si aad ugu qaldamin afar koorsa ku jira koorsada koowaad maxay tahay waa e-commerce and social media marketing waa sida ganacsi online loo bilaabo loona suuqgeeyo waa suuqgeyn iyo e-commerce oo isku jirta koorsada koowaad e-commerce and social media marketing waa e-commerce iyo social media marketing isku jira weey koorsada labaad waa cryptocurrency koorsada saddexaad waa public speaking fagara ka hadalkii weey public speaking koorsada afraadna waa social media marketing si gaar ah waxaad ugu baranaysaa suuqeynta baraha bulshada waa iyadoo si gaar ah koorsada kalena way ku jirtaa iyadoo gooni loo saarayna waa kan si loogu talagalay dhalinyarta marka iyagoo aqoontooda ama xirfadahooda raba dadka in la wadaagaan inay si gaar ah u bartaan koorsada social media marketing afarta koorso waxa malaynayaa waad kala fahantay website-ka ku jira tusaale aan waxaan rabaa inaan diiwaan geliyo gabar ardayda kamid ah ayaan rabaa inaan diiwaan geliyo waxay rabtaa koorsadan ah e-commerce and social media marketing koorsada aad iibsatay waxaan ku dhufanayaa meesha ku qoran maartay iibso hadda baan ku dhufanayaa formkana ii soo baxay formkan ii soo baxay formka markuu ii soo baxo halka hoose maartay ku qoran tahay register now hadda isdiiwaan geli register now baan ku dhufanayaa register now hadda arday cusub weeye hadduu isdiiwaan gelinaya okay halkan marka first name meesha ku qoran tahay magacaaga koowaad geli last name meesha ku qoran tahay magaca aabaha iyo magaca awowga baad gelinaysaa username waa naanays magaca aad ku soo gasho website-ka username ayaad halkan gashanaysaa email-kaaga halkan gashanaysaa email-kaaga saxda ah haddaadan email lahayn email sample ah oo tusaale ah baad gashan kartaa password halkan waxaad gelinaysaa password-ka gelinaysaa password confirmation mar kale ayaad password-kii ku celinaysaa intaasoo tallaabo ayaad marka hore buuxinaysaa aan gabadh diiwaan geliya marka halkan aan diiwaan geliyo okay tusaale marka formka marka aan buuxinay ama formka aan buuxiyay waa kan magaca ugu horeeya gabadha waxa weeye magaceedu waa Hodan last name magaca aabaheed iyo magaca awowgeed waa Maxamed Warsame Maxamed waa aabaheed Warsamena waa awowgeed username ku waa muhiim waa hadhow kaad website ku soo galaysa weeye Hodan 2026 magacaaga wax raacso magacaaga naanaystaada ku qoro Hodan 2026 ma gabadhan ugu qoray email-keeda waa kan hodanahmed2025@gmail.com aduguna sidaas oo kale email u samaysanaysaa hodanahmed2025@gmail.com halka password-ka waxay ka dhigatay hooyo mar labaad ku celi password-ka xagga hoose ku celi mar labaad hooyo waa ka intaas soo buuxiyay inta adiguna xogtaada ku bedelo haddii Axmed lagu dhaho halka Axmed ku bedelo aabaha magaciisa Axmed Maxamed Faarax أحمد الكعسة وكا إيميل كا باسورد كا وكعلي أنت واحد مالنا أرجع أن فهم المجلو أنت ولا ما فهمت هالك هو سكان مركا ريجستر مركا يدوين جلي ريجستر هو سكون في مركا وكا ريجستر مركا كله فتو وحكوسه صاريا سيف باسورد ما سيف جريسانيسا سيف له ساعد مرة باسورد كادو يلاوين باسورد كي أقشطي سيف له باسورد فضود نقشوا ولا لا باسورد فضود قشوا يلاوين أنا بحرد كلية باسورد كوي يلاوين والباسورد فضود قشوا ولا باسورد فضود على حسوسان كرتو قشوا هيه هل كان مركا محي يقول حاجة مركا دوان جلنت هذا مية دمايسترن تاي ما يما دمايسترنا
website kii baad iska diiwaan gelisay waxa ku dhiman warqadda lacag bixinta inaad buuxiso foomka lacag bixinta inaad buuxiso sidee marka foomka kale u buuxinaya barti ku laabo koorsadii ku laabo iibso ku dhufo hada ogow barti horan ku laabta iibso marka hore muxuu soo saarayay foomkii diiwaan hadda wuxuu soo saarayay fiiri foomkii soo saaray check out waa maxay waa warqadii lacag bixinta weey warqadii lacag bixin marka hore way isdiiwaan geliyay marka dambana warqadda foomka lacag bixintan buuxinaya foomkan lacag bixintu waa tan gaaraysa maamulka gaaraysa ama qaybta finance-ga ay u dhacaysa weeye hadhowna koorsada lagu soo fasaxayo haddaad foomkan buuxin macnaheedu waxa weeye hadaad website iska diiwaan gelisay laakiin adminka koorsada ku fasaxaya koorsadaadi ma arko magacaaga iyo xogtaada u soo bixi mayso marka foomkan waa muhiim foomkan buuxi haddaad foomkan buuxin waa kugu adkaanaysa waxa leeyahay xogtaadi ma hayno sababtoo waa maxay foomkan ka maqan hay foomkan aan buuxino marka halkan aan buuxino meesha ugu horeysa maxaan gelinay isaga ku galiyay emailkaaga waa ugu horeeya halka magacaaga gasho halka last name magacaaga mar labaad ku celi halka country meesha ku qoratay wadanka gali street wada iska gasho town ama city magaalada ku nooshahay gali state maamul goboleedka gali maamul goboleed ama Soomaaliya hadda iska gali post code 5 baa la gelinay post code meesha ku qoran tahay 5 baa la gelinay arday waxa wuxuu ku leeyahay post code Soomaaliya ma leh waxaan ku yiraahday gali 5 halka gasho form taleefankaaga waad gelin kartaa halka waana ka tagi kartaa haye inta aan buuxiyo marka si aad tusaale u arsan buuxiyo haye arag marka sida u buuxiyo marka adna fiirso sida u buuxiso maxaan geliyay ma gabadha magaceedu waa ka hoodan last name Maxamed magacii aabaheed baan qoray magaca awowgeed waa sii qori kartaa ama magaca aabaha kaliya ku deysan kartaa country wadanka Soomaaliya aan doortay soo aragtid street ko wadada ay degan tahay Muqdisho Soobe degan tahay Soobe aduguna wada iska gasho street uu iska gasho waxa ka xaafadiina wada iska gasho magaca iska bixi town magaalada ku nooshahay Muqdisho state gobolka macnaha ka tirsan waa maxay waa Banaadir gobolka Banaadir post code 50 baan 50 gali form taleefanka waa ka tagay inta martina buuxiyay inta aadna saas kale u buuxi warinta ma garan waayaysa warinta walaal sida u buuxi inta markaad buuxiso hoos fiiri marka meesha hoos aday place order haya dir marka foomka lacag bixinta dir marka place order baan leeyahay place order aan sugs order in foomkan uu soo saaro foomkan inaan diray in kale maxaa ku ogaanay waa kan thank you waa mahadsantahay your order has been received orderkaaga ama dalabkii koorsada soo dalbatay waa la helay bas halka uga har walaalo ha ku celcelin halka hadaad soo gaarto ha ku celcelin mar labaad koorsada dib ha ugu celcelin ha iswaalin halka ku joog barta hadda ay joogto ku joog ma ku joogtaa in macallinkii waxa rabtaa in lagu fasaxo koorsada soo maaha waxa ku soo qortaa WhatsApp-ka macallin koorsada iyo fasax macallin magacaaga soo qor magaca isku diiwaan gelisay tusaale gabadha maxaa la Hodan Axmed soo maaha magacaygu waa Hodan Axmed koorsada iyo fasax bas macallinkii wuxuu arkayaa magacaagii emailkaagii koorsada soo dalbatay waka koorsada aad iibsatay koorsa ahayna soo dalban hadaad koorsa kala soo dalbato dalabka waa lagu soo celinayaa marka ha iska saarin koorsadaadii magaceeda marka hore si eego koorsada soo codso hadda waa ka marka WhatsApp-ka dib baa WhatsApp-ka ugu laaban kartaa halkana waa ku yaala maarta website-ka waa kan halkana ku soo qori kartaa macallin koorsada iyo fasax dhag xogta noo soo dhacaysa marka inta marka samayso adiga shaqadii waa ka wareegtay marka waxaad sugaysaa in koorsada lagu fasaxo yaa ku soo fasaxaya macallinkii baa ka sugaysaa inuu ku soo fasaxo haye hodan marka hadda koorsada waa loo soo fasaxay aan eegno marka sida ay koorsadeeda ay u qaadanayso si ay koorsadeedii u furato koorsadeedii u aragto waxay tagaysaa waxa weeye koorsadii bay tagaysaa koorsadaadi maartay iibso meesha ku qoran tahay koorsadaadi ku dhufo iibso kadib waa kan halkan gasho marka username-kii iyo password-kaagii halkan gasho gabadha waxay hodan 2026 bay ahayd password-keedu muxuu ahaa hooyo ayuu ahaa dag waka register miyaad aadaysaa maya hoos register ha aadin sababta gabadha way soo diiwaan gelisay koorsada waa loo fasaxay way galaysaa kaliya albaabkii oo furanaysaa hodan 2026 username-kiina way gashatay halka ma aragtay si aad mar walba u ilaawo mar kasta aad u buuxin waxa tirada keep me sign macnaha keep me signing mar walba i xasuusi adu i xasuusno hadhow saaka ku xasuusinay toos ugu gelinaya kadibna waxa la yahay sign in mar sign in baan ku dhufanaya sign in markaan ku dhufto bas saf garaysanaysa aha i saf garay baan leeyahay waa kan waxa soo baxay koorsada fiiri iibso maxay isku bedeshay start learning barashada bilow start learning ku dhufo marka
start learning ku dhufo marka aad start learning ku dhufato casharada toos kuugu bilaabanaya halkan fiiri saddexda dhibcood maarta meesha saddex dhibcood ku qoran yihiin waxaad ka arkaysaa casharadaadi waa kuwan casharadii casharka koowaad casharka labaad waa kuwa casharadii waa kuwa barba casharka aad marayso halkaas ka arkaysaa dhag waka halka maarta qofka ku sawiran yahay dad ku dhufato halkaas casharada halkaas aad ka arkaysaa barba halkaas casharadii aad ka arkaysaa okay markan casharka qaato casharka ku xiga see ku helayaa marka saddex dhibcood baad ku dhufan kartaa casharka ku xiga ku soo dhufsanaysaa halkan casharka ku xiga baad tig saarsan kartaa ama waxa samayn kartaa hoos fiiri xagga hoose tag commentiga ka hooseysa next maarta next casharka ku xiga iyo gudbi weeye previous waa maxay waa casharkii aan soo dhaafay iigu celi cashar kasta marka uu ku dhamaado make as complete ku dhufo make as complete waa maxay casharka waa dhameeyay si automatic cashar ku xigu kugu gudbinaya ama next ku dhufo hadaa rabto dib inaad u noqotana previous ku dhufo waa ka halkaas casharadaadii waxaagii ka qaadanaysaa wax cilada waa kuwa casharadaadii waa kuwa sidaas oo kale walaalow samee hana degdegan muuqaalka ku celi 2 goor 3 goor daawo marka aad fahanto adigu ismaamul kaliya saas isku duwaan galin saas casharka u qaadanaysaa no book kaliya inta fahan insha Allah aad ma maasid assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh